fanaanka caanka ah ee Axmed Saki Maxamuud oo si weyn fankiisa looga xiiseeyo dhulka Soomaalidu degto isla markaasina kamid ah fanaaniinta qurba joogta ah ee ku nool wadanka Norway ayaa maanta ka soo degay gegada diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dadweyne tiro badan oo kamid ah taageerayaashiisa fanaanka Axmed Saki Maxamuud oo soo dhaweyntiisa kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka dareen celiyay booqashada uu ku yimi magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda uu bandhig faneedyo ku qaban doono magaalooyinka Somaliland الله مين ريانا يا مصورن والله ده هرجيس waxay ugu dambeysay anu reer Hargeysan ahaa waxay ugu dambeysay 10 sano ka hor asxaabtayda qaar badan baa caawiyay la jooga marka waxaan leeyahay Somaliland aad baan u salaamay Hargeysana wallahi waxaan one dream Rio waxaan moodayaa inaan riyoonayo laakiin alxamdulillah wali maanta iyadoo rooban ba ilaahay igu samay aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan asxaabta qaaliga ay ka soo qayb gashay markaad rabada ka soo degtay ma ooyday maxaa dareentay jawigaaga seed noqotay wallahi qofku markaad ooydo waa meel dhow laakiin markay ooyina ka iman weydo waa xaalad adag weeyaan marka wallahi shacabkan wiilal iyo gabdho ilaa gudaha ilaa VIP-da aad iyo aad baan u salaamaya shacabka Somaliland guud ahaan gaar ahaan reer Hargeysa aad iyo aad baan u salaamaya insha Allah programna insha Allah waynu isku iman doonaa hadii la yiraahdo oo ay hareerahayga taagan aad iyo aad baan u salaamaya waxaan salaamaya ciidamada qaranka Somaliland waxaan salaamaya madaxweynaha waxaan salaamaya golayaasha qaranka waxaan salaamaya dhammaan reer Somaliland oo dhan in ma idide ma Hargeyso kaliya laga xuso Somaliland oo kaliya adduunweynaha oo kala laga xusaayo 10 meelood oo kala laga doonayo moogti marka meelaha kale aan ku yar mashquulay walaal inshallah wada joognaa barnaamijyada dambena waan ilaa iida iyo wixii ka dambeeya heesa cusub Somaliland u soo wado qaaraan Hargeysa oo wado qaaraan Burco Boorama dhamaantood Somaliland oo dhan magaalo ugu wada inshallah ana haday ka miisan yihiin Xasan Maalidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa